xasuuqa sagaalaad xasuuqii Boorame 1991kii waraysi qof ka badbaaday magaciigu waa Sheekh Xasan Daheye waxaana laygu tiriyaa inaan kamid ahay culimada reer Boorame ee gobolka Awdal markiigii hore waxaan ahaa macallin fiisigiis ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho waxaana ka qalin jibiyay kulliyadda waxbarashada la foole ee jaamacadda ummadda 1981kii ayaan shaqada dawladda ka tagay waxaana in muddo ah macallin ka noqday dugsi uu Sacuudiga ka dhisay magaalada Djibouti markii ay burburtay dawladdii dhexe 1991kii waxaan joogay magaalada Boorama reer Boorama waxay taageersanaayeen dawladda dagaaladii socday markaas galabnimadii 3 Febraayo 1991kii odayaal iyo waxgarad ayaa looga yeeray magaalada oo barre ee dhacda xadka Itoobiya iyo Soomaaliya kulankaas oo aan anigu lafteyda ka qayb galay waxaa soo qaban qaabiyay oo isugu yeeray nin reer Boorama ah oo sarkaal sare ka ahaa jabhadda SNM waxaa lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan oo Cali sarkaalkaas wuxuu noo kulmay markii la dukaday salaadii maghrib galabnimadii bisha Febraayo ee ahayd 1991kii wuxuuna waxgaradkii reer Boorame ee shirka joogay u soo jeediyay in birri oo bishu tahay 4 ay ku dhawaaqayaan inay iyagu la wareegeen maamulka gobolka Awdal nasiib darase waxgaradkii way la noqon weyday inay go'aankaas la qaataan dawlad Soomaaliyeed oo wali jirtay markaas Cabdiraxmaan oo Cali hal eray oo kaliya ayuu yiri dhibaato weyn ayaa dhici doonta kadibna wuxuu aaday Jigjiga isla fiidnimadiiba waxaan ku soo noqonay magaalada Boorama dadkuna waxay u dhig taagayeen waxa dhici doona maalintii 4 Febraayo gelinkii dambe waxaan tagay isbitaalka Boorama halkaasna waxaan kula kulmay baabuur nuuciisu yahay ina taree oo ay ciidamadu lahaayeen oo dad dhaawac ah laga dejinayo waxaa la ii sheegay in laga keenay tuulada Dila oo dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Boorama halkaas waxaa qabsatay SNM waxayna ka geysatay dil fara badan wax yar kadib anigoo isbitaalkii ku sugan waxaa si dheeraysa oo xuf ah nagu dhaafay gaarilan gurusal ah wuxuu noo gudbay xagga taliska ciidanku ahaa oo ku yiilay dhinaca waqooyi meel ku dhow halka uu iminka dhisan yahay Hotel Race gaarigaasna gudbay ciidanka war ayuu u siday waxaana ciidamadaas oo aad u xoogganaa hub lixaad lehna haystay ay baneeyeen saldhigyadoodii amin ku beegneed 4tii galabnimo waxay ku baxeen dhinaca wadada dhal wanaaji ee dhinaca Djibouti u baxda kadibna waxay u weecdeen dhinaca xadka Itoobiya waxaa taliyo ahaa General Siyaad Daawud markii ciidankaasi sii baxay madaafiic ayaa magaalada ku soo bilaabatay oo laga soo ridayay dhinaca koonfureed xagga wadada Hargeysa u baxda madaafiicdaas waxaa la beegsanayay ciidanka sii baxaya ee dawladda hase ahaatee qaarkood wuxuu ku soo dhacay magaalada waxyeelo ay geysteen qiyaastii 5tii galabnimo waxaa magaalada jihawalba ka soo galay maleeshiyaadkii SNM waxaa kale oo iyaguna dhinaca waqooyi ka soo galay askar kamid ahayd ciidanka baxay ee dawladda laakiinse loo filayo inay SNMta hoos kala jireen kuwaas oo isla markiiba bililqo iyo dil ku bilaabay suuqii bacdlaha magaaladu ma ahayn mid isku diyaarisay inay cid la dagaalanto waxaana jabhaddii SNM ee soo gashay Boorama laga bilaabo 5tii galabnimo ee 4 Febraayo ilaa 12kii subaxnimo ee 5 Febraayo 1991kii waxay magaalada ka fuliyeen dil aan loo aabayeen waxayna Boorama kaliya ku dileen 740 qof waxay isugu jireen rag dumar carruur iyo waayeel dadkii ugu horeeyay ee la dilay waxaa kamid ahaa duqii magaalada Boorama Maxamed Xasan Maafur isagoo baawur weyn ku sii qaxinayay qoyskiisa ayaa lagu dhuftay xabad jiib ah waxaana halkaas ku dhintay qoyskiisii oo idil waxaa kale oo kamid ahaa gudoomiyihii gudoonka waxbarashada Daahir Xasan iyo qoyskiisa oo isla markii magaalada la soo galayba la dilay Cornel Dirie oo Jibriil Abubakar ah ayaa hogaaminayay ciidanka SNM ee soo galay Boorama ee xasuuqa ka geystay dilka ka sukow 4 iyo 5 Febraayo magaalada waxaa loo geystay dhac iyo boob hantidii dadku lahaa gaadiid qalab lacag wax la dhaafay ma jirin magaalada meel kamid ah dad meherado iyo maqaayado ku lahaa ayaa jiray waxaana igu maqaalo ah in qaarkood ay dhinteen iyaga oo daafacaya hantidooda isla habeenkaas amin saqdii dhexe ah waxaa dib qabsaday dukaankii ugu weynaa magaalada wuxuu ahaa dukaan aad u buuxay oo cunto dhar qalab baabuur saliid taayiro iyo shidaal wax walba yaalaan waxaana isaga oo gubanaya iftiinkiisu uu maalin cad ka dhigay magaaladii ka adeegan jirtay dukaankaas halkaas ayuuna ku baaba'ay anigu habeenkii oo dhan waxaan saarnaa buurta Sheekh Cali Jawhar oo ku taal bartamaha magaalada waxaana jiha walba ka eegayay wixii habeenkaas Boorama ka dhacay markii waagu bariyay ayaan la qaxay carruurtii ilaa 3 meelood oo saldhig ah koonfurta bariga iyo galbeedka ayaa ciidamadu wax dilaya laga soo dirayay SNMta waxaa la socday ciidamo Itoobiyaan ah oo jiibab watay magaaladan waxay ka baxeen saacadu markii ay ahayd 8 subaxnimo kuwa SNM iyagu way sii joogeen oo waxay baxeen 12kii subaxnimo waxayna ku baxeen wadada koonfurta uga soo baxda magaalada ee dhinaca Hargeysa ninkan waxaa lagu wareystay gudaha magaalada Boorama 23kii May